السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أخياري. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد وأنا نسلم يا دمانتينا سلام كدب وحندونا ساكن أن إذن وداعو شيء كذا قاون أرين كان وأرين رنتي مركز الله لما يقوم مهمة إن لقى حلو أما ليس فيديو وأنا شيء كوسابسن جوار يونين كذا أما رئيس قبو gabadh ayaa waxay ii soo gudbisay ama waxay ii soo dirsatay dacwo way ii soo dacwootay waxay ii sheegtay arrin waxay ugu tiri nin baan isqabnay waan isguursanay kolka ninka isguursanaynayna waxaan isku guursanay bay tiri oo aan ku ballanay inuu dibadda igeeyo oo ii dhoofiyo waxay tiri ayaan ku ballanay maalin alla markuu ay guursaday waxay tiri dib muusan soo fiirin oo labadii sano buu mar yimaadaa bil buu joogaa ama 2 bilood haddana waxay tiri wuu laabtaa ilaa saacadan maanta dibaddii imuusan geenin ballanteena waxay aad bay tiri inuu dibadda geeyaa waa hagaag kadib waxay tiri ninkii maadaama uusan dibadda geynaynin waxaan ku dhahay tiri ifur maxaa talaa maxaan sameey maxay ugu talin lahayd aniga waxaan ku dhahay haddii markaad isguursanayseen horta waxaan ku yidhi walaali ilaahay ka baq oo ninkaada ha ka dalbanin furiin ninkaagu ha ku dhihin ifure ilaah ka baq ninkaaga amarkiisa qaado adeec u hoggaansam taa waxaan ooga dhigay hordhac tan labaad waxaan ku yidhi markaad isguursanayseen haddii sharuudda guurkiinaba ay ahaydba shuruudba ay ahayd ilaan waxaa jirta dadka muslimka waxaa jira wax la yidhahdo axdi iyo shuruud isla galo qofka ballan haddii sharuudda ay ahayd maalintaad i guursato waad idhoofinaysaa sharuuddiin hadday aad guurkiin u ahaa oo mid la ogyay ay ahayd maa wax labadiina kale idinku goban oo mid la ogyay ay ahayd waxaan ku yidhi dadkii idin ogaa ee guurkiina ka warqabay shuruuddiina ogaa u bandhig arrinka u sheeg ayagu marka go-aan ha ka gaaraan haddii ninkaasi lagaga qalqaalinayo inuu ku dhoofiyana haddee waa khayr hadduu ku dhoofin waayo oo maaragtay ay reerkiini ama dadkii kugu darayba ay ku dhahaan war ninkanayto waxaa weeyaan kuma dhoofin karo sababtaa darteed ee walaalay u deganaawna waa khayr haddee kaa furaana waa khayr laakiin waxaan ku yidhi aniga waxaa ila haboon baan ku yidhi waxaan waa bini aadame waxaan baa ka qaldama kale iska cafiyo u deganaawo midda kale waxaan weydiiyey su-aala waxaan ku yidhi ninkan markaad isguursanayseen ma waxaad isu guursateen jacayl iyo reer aad yeelataan iyo mustaqbal iyo meel aad degtaan owlaad aad dhashaan oo reer muslim ah aad noqotaan maad isu guursateen misne in uu ninkan dibadda ku dhoofiyo dhoof keliya baad u guurso ninkan wax kale oo leex jeclo ah iyo jacayl iyo dhaqaalo kaleba kama rabtid isagaa la dhahaa bay tiri ninkan kolkaan guursanayay waxaan u guursaday bay tiri inuu dhoofiyo keliya jacayl iyo waxaa ilmihi waxaa sagaa la dhahaya mustaqbal waxaan ku yidhi marka hadday sidaa tahay haddaad jecel isu guursateen oo un aad ninkan oo sheekadu ay tahay un in aad jeclaato in lagu geeyo meesha uu joogo ama jacayl aad u qabto dartiis aad u rabtid in maaragtay lagu geeyo meeshiisa waa meesheeda haddiise sheekadu ay ahayd oo yacni waa meesheeda waxaan ku yidhi walaal mar walba ninkaas sidaa u jeclaaw amarkiisana qaado haddii xagga aad ku jeclaan lahayd intaan ku jeclaaw u joog haddiise sheekadu ay tahay un bis ah ha ku dhoofiyo markuu maraykanka ama yurubta meel uu joogaba ha joogo ku geeyana geer out ku dhow macnaha waxaa la dhihi jiray bacdi madow bannaan ku dhig ay kaa tahay sheekadaadu taa waxaan ku dhihi walaalay guur maaha asna waad lugoynaysaa asna wuu ku lugoynayaa baan ku waad been baad isu sheegaysaan guur ma aha haddiiba sheekada ay wax leex jeclo ah iyo maaragtay dadnimo iyo owlaad iyo mustaqbal iyo reer muslima aadan ka rabinba oon ay tahay niyadaada iyo muhiimadaada ninkan mar ha ku geeyo dibadda la sheegayo aadna maxaa la dhihi jiray kolkuu ku geeyana bacda madow bannaanka u dhigba ay tahay oo hawo kale baad ka leheen waxaan ku yidhi waad lugoynaysaa waktigaa ka luminaysaa ninkaaga asna sidoo kale waad isu lugoynaysaa been baad isu sheegaysaa baan ku kaas guur ma aha oo asna uu raalli kaaga uu ku ogyahay
tan kale marka intaa laga soto sida banaanbo qofka markaad guursanaysid wax aadan sameeyni karin ha u ballan qaadin wax aadan sameeyni karin gabadha ha u ballan qaadin gabadhuna ninka yeeso u ballan qaadin waxaysan awoodin haddii gabadhu ay leedahay dabeecad qalafsan oo dabeecada qalafsan ay ogtay inay iska goyni karin ninkiina ay kugala ballanto dabeecada iyo dabeecadaas haddii bixi jirto ay ahayd qof wareegi jirta ama asxaabul saaxaba ay la socon jirtay ay tiraado maalintan is guursano ay ugu dambeynayso ayna ogtahay inay goyni karin iyana been ninka u sheegin sidoo kale ninku wax uusan iska goyni karin dabeecada yuusan been ugu sheegin qofka waxaa imaataa arrimaha shuruudda ah wacalaykum assalam wa barakatu gabadh hadaad kula ballanto kolkaad guursanaysid walaalay waan ku dhoofin waan ku kaxayni maalintaad guursato oo ay xilaada noqoto oo aad adiga xara soo gashato oo nin kale uusan guursan kalinna aad ballanta ooga baxdo aad ku dhoofini maayana idana waa wax xun weeyaan gabdhuhuna nimanka ay guursanayaan yaysan hunguri iyo lacag iyo baasboor iyo dibad lagu geeyo u guursanayna ha u guursadaan mustaqbal iyo caruur iyo reer muslim ah inay maaragtay soo buuxiyaan ha u guursadaan wacalaykum assalam wa barakatu waxyaalaha kale iyadana jira waxaa in runtii dhis way idin mudan gabar baad qabtaa waad guursatay dibad baad joogtaa maraykan aad joogtaa ingiriis baad joogtaa soomaaliya joogtaa africa meel kale ka joogtaa kenya joogtaa gabadhaadii uur kuma laha ilmo kuma hayso waad guursatay aroos baad la gashay sawirro keeda iyo kaagaa la isku dhejiyey Facebook meelahaas la soo geliyey gabadhii waxaad tidhahda waxaan ku imaanaa 2022ga 4 sanaad ka maqan tahay dibaddaad jirtaa ayadii gabadhii waad xaniftay hadduu nin guursan lahaa ninkii guursan lahaa waad ka xaniftay haddii la shukaansan lahaa kii shukaansan lahaa waad ka xaniftay ilmo ma dhali karto gabadhii aday kugu mehersan tahay waa xaaskaaga 4 sano ayaad ka maqan tahay maraykankaad joogtaa ama yurubtaad joogtaa ama meel kale afrika ka mid aad joogtaa gabadhaadana way ku sugaysaa awalan horta waxaa weeyaan dembi baa kugu soconayo gabadha muslimadda waa nafley adiguna waxaa tahay nafley gabadh haddaad guursatid muslimada oo aad xanibto oo aad xirto oo aad kheyrkeeda ka xanibto oo aan la guursan karin gabadhu waa aday kuu dhimatay laannu gabadhu waxay u baahan tahay marka nin bay u baahan tahay owlaad bay u baahan tahay gabadhi dhiig baa ku dhacayo mar kastoo dhiig ku dhacayo gabadhaas waxaa weeyaan waxaa ka khasaarayo ilmaha ka khasaarayo waa in aad gabadhii aad guursatay xaquuqday kugu leedahay xaquuqda ma aha keliya inaad xawaalad heblo tag ee $200 ama $300 qaado iyo mobile maaragtay iPhone aan kusoo dhiibay iyo laptop aan kusoo dhiibay xaquuqda taas ma xaquuqda ninkii naagta isku leeyihiin waxaa weeyaan gabadhu ninka intaas aan sheegna kadib gabadhu ninka waxay ka rabtaa ninnimay ka rabtaa asaguna naagnimo ka rabaa waxaa la isu guursanaya muhiimadda ugu badanna waxay tahay ninkii iyo naagtu in ay maaragtay ilaahay iskaga cabsadaanoo shahwadooda isku dhowradaan oo ninkan oo xaaraan kaga maarmo gabadhuna ay xaaraan kaga maaranto oo maaragtay farjidooda isku ilaashadaan owlaad dhalaan maaragtay ay noqdaan dad reer meel degan ay noqdaan oo ilma ay dhalaan laakiin waxaa weeyaan haddii sheekadu ay tahay gabar baan guursanayaa afrika ii joogaysaa 4 sano 5 sanaan ka maqnaanayaa sida la sheegay gabadha waxaa la sheegaa ninka weyn ma aragtay 4 bilood iyo 10 beri meelahaas ka badan ma fiicno ninka ma banaan inuu ninka gabadha ka maqnaado haddaysan ayadoo raalli ka ahayn ama haddaysan xaalad caafimaad iyo daruur aysan jirin dhankan wuxuu soo qoray xaaji muuse xaaji xasan ballanso ma jiro adeer ballantu way jirtaa waataan sheega waxaan yidhi qofka wuxuusan oofin karin hadhow aniga sidaa ila tahay weyaan ma aha fadwo aan bixinayo ama fadwo aan leeyahay waa ilaa hala sameeyo fadwo ma aha laakiin ra'yi aniga aan qabo ra'yiga ugu fiican wuxuu yahay haddii gabadhan aad hadhow dhoofin karin ama inaad dhoofisaba uusan qasidkaaga ahayn oo ma aragtay aadba islahaynba gabadhan dhoofi waa qasidkaada u yahay gabadhan yare quruxsan ee maaragtay cardunka ah mar gacanta soo geli ay tahay oo aad intaas sabato aad ku dhahdid waa ballan inaan ku dhoofiyo maraykankan ku geynaya oo ballantuna ay tahay ballan isla ogyahay ama ballan adag shuruud adag ay tahay oo gabadha berita markaad guursatana aad ballanta uga baxdo taas waa khiyaano cad waa sidaan u arkay ra'yi ahaan waayo waxaa weeyaan qofka muslimkaa
waxyaalaha munaafiqiinta lagu garto waxaa kamid ah calaamadaha munaafiqiinta waxaa kamid ah waxay ka baxaan ballanta. calaamadaha munaafiqiinta waxaa kamid ah waxay ka baxaan ballanta, ama ha noqoto ballan ay ilaah la galaan ama ha noqoto ballan ay bini aadam bashar la galaanaya. xitaa walow kaana ninka xitaa hadduu gaal yahay ballan aad la gasho inaad ballanta qofka oga baxdo ma banaano. waxaa weeyaan waxay kamid tahay calaamadaha munaafiqa inuu qofka ballanta ka baxo. marka gabadha haddaad ballan la gashid waxay kamid calaamadaha munaafiqa kamid oo ballanta aad oga baxdo calaamadaha munaafiqa kamid tahay. waxaa kaloo idin isweydiin leh tusaale hadda gabadhi ayadoo Afrika joogto ninkii waxba ballan mayna la gelin waa uu guursaday, laakiin ayadaa waxay kaga soo dhegtay niya u idhoofi waa ilaa idhoofi Maraykanka igey. taa xaq buu leeyahay inuu diido warana Maraykanka kuma geynayo, laakiin ayaduna xaq bay leedahay oo ah Maraykanka inaad igeyso ama inaad Yurubta igeyso waa diiday iyo meeshaad joogto soo maha kaale halkan iri joog nin ii noqo waa xaq ay leedahay weeyaan. hadduu diido taas meeshaad joogto igey way diiday wuu diiday, meeshaan joogo igu imaaw kaale nin ii noqo way wuu diiday. markaas gabadhaas waxaan dhihi karaa aniga xaq bay leedahay, waxay ku dooday haysataa waddo ay ku dooday taas lafteed bay haysataa. waxaa weeyaan waxaa kaloo jirtaa dadka qaar ba waxay isleeyihiin laga yaabaa gabadhan iyadoo Afrika joogto hadda saa ku gumaysanayso oo ilaa Maraykanka iga dad igeenin ifur ku leh armaay hadhow kolkaad Maraykanka iyo maalihi qurbihi aad kentaa ama ayba maaragtay ku xirtaa ama ayba ay bacd banaan ku dhigtaa ama way ninka laga raacdaa waa macquul gal waana shaki laga qabi karo. laakiin aniga waxaan aaminsanahay waxaa weeyaan dadku markay isguursanayaan qofka wuxuusan awoodin yuusan sheegin. gabadhu waxaysan awoodin yahay ninkeeda u sheegin. haddii ninka nin Afrika joogo u yaho ay leedahay xitaa inay soo wadato ay sifa ay ku soo wadato ay rabto ama qofka waxaa jira rag ilaahay lacag siiyey iyo haween ilaahay lacag siiyey. qofka marka intaad lacag wax u ballan qaado ama hunguri qofka aadan dhow oofin karin qofka in ballan lala galo anu kale ilama wanaagsan. waxaa kaloo leeyahay marka ragga gabdhuhu runtu way kala samir badan yihiin. hadda ka hore waxaan xasuustaa ani gabar nin baa qabay, ninkii qabay South Africa jira xitaa meel fog muusan jirin, sidaa Kenya ka dhacday. gabadhi ninkii wuxuu ka maqnaa 3 sano ama 4 sano adii muddo wuxuu ka maqnaa waxaa lagu yiri muddo ay 3 dhali lahayd uu ka maqnaa ninkii. gabadhi gabar fiican oo muslimada cafiifad bay ahayd, alxamdulillah way ku samirtay way ku asturnaatay. ninkeedii ay yimaaday kolkuu yimaad uur bay hor ka qaaday waxay dhashay 3 wiil. 3 wiil bay dhashay. qisada waa qiso caan ah. 3 sano ka maqnaa miyaa mise 3 da in laga dhalo way ugu samirtay way ku adeecday wuu yimaaday uur bay u qaaday waxay u dhashay mataana 3 wiil bay u dhashay. fiiri ah 3 didaa ka khasaartay ilaahay hal mar buu 3 didaaba u soo celiyay. ma fahamteen? marka waxaa weeyaan haddii gabadhu ay ayadu raalli ka tahay oo ninkaas waxa uu samaynayo ay raalli ku tahay oo inuu ka maqnaado oo ay raalli ku tahay haba dhibaatooto leen gabadhu waa naflay nin bay u baahan tahay. haba dhibaatooto dhiig badan baa ku dhaco haba rafaado haba la dhaho ninkaadii aaway wax walba ha lagu sheego. hadday ku samirto oo ilaahay dartiisa ay ugu jeclaato oo ay ku samirto ilaahay agtiisa laguma qasaarayo. ilaahay agtiisa laguma qasaarayo kumana qasaaraysid. marka waxaa weeyaan walaalayaal barnaamijkayga saaka wuxuu daaranayaa waxay tahay in labada qof isguursanayso kolkay isguursanayaan ay isku guursadaan si lilaahi ah daacad ah muslimnimo ah mustaqbal inay awlaad isu dhalaan inay ilmo kala helaan inay reer muslima noqdaan inay ilaahay iskaga cabsaan inay maaragtay baahidooda isku asturtaan inay isu guursadaan wax la yiraahdo season ama sida guri maaragtay furniture guriyaha maaragtay ninbaa dadka oo kale dadka inta badan qurbaha ka yimaado meelaha Afrika markay imaadaan waxaa laga kireeyaa guryo la yiraahdo furniture oo guri wax walba ku jiro alaabtiisa wax walba. guriga ninka wuxuu ku leeyahay aniga waxaan degnaanaa 6 bilood 3 bilood 4 bilood bil waa season waxa agreement oo sanad ama 2 sano iyo forever nin kala ma saxiixanaysaan. marka guriga haduu noqdo guri season oo ninka naagta isleeyin aan muddo isku moodno gurigaas culimada way diiday waana xaraam. wad fahantay ma filaya marka shuruud in runta guriga isku xiray ma fiicno. waa shuruudaha qaarkood qofka bini aadamku inuu oofiyaa
way ku adagtahay waa ina dhibaysaa qofkuna waxaa weeyaan inuu qofka kale bini aadamka inuu kalifo ayaduna ma fiicno marka haddayse jirto nin raga ama haweeney qof ballan la gashay ninkeeda ama nin naagtiisa ballan la galay ballantaas hadduu awoodo waa inuu oofiyaa hadduu awoodin qofkii uu ballanta la galay waa in maaragtaaye uu ka codsadaa inuu ka cafiyo waa gartaan umaleya waxaa kaloo ogaataan gabar haddaad guursatid gabadhu xaquuq bay kugu leedahay adiguna xaquuq baad leedahay maxba weyn ma tarayso hebel lagu guursaday naa u guursaday afrikay u joogtaa iyo meedheble u joogtaa wax weyn ma tarayso waxaa wax taraayo hebel waa guursaday hebel xaaskiisii hadduu ilaahay ku siiyo uur bay u yeelatay hebel ilmaa loo dhalay hebel 2 wiil baa loo dhalay hebel 3 cunug baa loo dhalay taasaa wax macno samaynayso hadduu ilaahay ku kaso laakiin hebel waa guursaday maraykanku maqan yahay yurubta kale ku maqan yahay gabadhiisina waxay joogtaa soomaaliya ama meel kale afrika ka mid ah 3 sano 4 sano ka maqan yahay wax macno ay samaynayso weyn ma lahan ilaahay ka cabsada ragga ilaahay ka cabsadaan xaquuq baa idinku leeyahay xaquuqda idinku leeyahayna guda hablo idinkuna waxa weeyaan xaquuq baa raggiina idinku leeyahay ilaahay ka cabsada oo raggiina ka cabsada oo adeeca haweenkuna waxaan leenahay maaragtay ragguna waxaan leenahay ilaahay ka cabsado hablahan masaakiinta ee aad guriga soo xareysanaysaan ee idinka idin xirxiran ayaguna xaquuqdooda siiya haddii aan leedahay xaquuq ninimo haddii aan leedahay xaquuq dhaqasho xaquuq guri wax waliba oo aad awoodaan oo aynan maaragtay danta idin gabin sameeya insha Allah qayb badan rajana qeyra waan idin salaamaya in badan nabadgelyo naxariis korkiina ha ahaato insha Allah ilaahay dambiga waalidiinteena ha dhaafo inta dhimata Allah naxariisto inta xanuunsan ilaahay caafiyo inta maaragtay xabsida sida maaragtay oo ugu xiran sida dulmiga ugu xiran ilaahay ha kusoo sidaayo kuwa ilaahay faqriga uu ku mashaqeeyeen hadduu khayr ugu jirin ilaahay waxay ku manaafacaadaan oo khayr Allah siiyo. Assalaamu calaykum warahmatullahi